munaasabadani ballaaran oo hanaankeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimay oo lagu shaacinayay murashaxiinta kala Professor Jamaal Jaamac Ismaaciil oo u tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo Cabdisalaan Maxamed Xaaji Buraale oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco kuwaas oo ka sharaxan xisbiga UCID ayaa waxaa munaasabadani ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga UCID Cuqaal waxgarad iyo taageerayaasha labada murashax Cuqaal waxgarad iyo haween munaasabada ka hadlay waxay taageero mugle u muujiyeen labada murashax Jamaal Jaamac Ismaaciil iyo Cabdisalaan محمد حاج برالي لبا مرشح جمال جامع إسماعيل يا عبد السلام محمد برالي ولبنين وأقونيهنا أنا وحنا قبا جمال يا عبد السلام إنه هوشا وقلمان قدوميهنا آدي حسب عدبة آدي أطبن وغمهنا قينا أقبل كاي أقبلين جمال يا عبد السلام ولبنين كرتله ولبنين متعلمين ولبنين قرباك سوشقي ولبنين وطك كوكوري faysal cali waraabe iyo ku xigeenadiisii xusbiga cid ka joogta goobtan na soo dhaweysay soo ixtiraantay iyagana sidoo kale waanu ixtiraamana waan u mahadnaqaynaa iyo uqaasha kale ee dadweynaha ee cid walba leh waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xusbiga reerkii ugu awoodda weynaa gobolka doorashooyinkii hore inuu ku biyo shubtay xusbiga cadaaladda iyo daryeelka waa UCID dhammaan Abubakar Axmed waxaan u sheegayaa inay taageeraan labada musharax ee la yiraahdo Jamaal iyo Cabdisalaan oo ah labada Abubakar Axmed wataway gacantooda siiyaan soo saaraan waxba aan ka agran ballanteenu waa UCID waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xusbiga reerkan waa Abubakar Axmed inamada ku kanana waa inamada ashir raban ee lagaga soo waramay عدي عدود بنوان ولا قرب تاجنا يضل ناي بيلوين تابوك رحمد لبعض صاروا يذكر رأسنا هاي وسلطان هرجاني والرقصها فيه الله قوله الرحمن كنا وهنتايو إلي هوا حرير تلتها جنا هاي وفرحان يديك وفاس وميلان مغلين جمال يا عبد السلام وفاس وان كيكو بحيان فيصل قولي سوق يا الله وخبصدو مشرحين تبيلوين تابوك رحمد أي كانين جمال جامع إسماعيل يا عبد السلام محمد براله همبليانو ليلين همبليو لو بقي مايو برلمان كمان تفديا قبل كتوغدير waxa ugu cod badnaa oo hogaaminayay farxaan gobolka Togdheer insha Allah maanta Jamaal baa hogaamin doona ilaahay waxaan uga baryaynaa musharaxiinta inay ku najaxaan oo ay soo baxaan baynu ilaahay uga baryaynaa xisbigana ilaahay waxaan uga baryaynaa in badan buu samreeyay inuu soo baxaa isna labada xildhibaan ee u sharaxan golaha deegaanka iyo baarlamaanka labada waan idin soo dhaweynaynaa waan idin ku hambalyeeynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa isaga casaw jalaan inay noqdaan kuwii soo baxay labada xildhibaan waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay ku guuleeyo xilka ay doonteen reerka Abubakar Axmed waan qaanayo ilaahay reeyo ilaa guban buu yaala ilaa galbeed iyo ilaa baru yaala kuwan loo biqmays wan bay ku baxayaan insha Allah billahi kariim niman kale walaalahan nahay ee noo sharaxan waxay u baahan yihiin in maalinta codka la bixinayo la shaqeeyo bilaa ka horeeyo la shaqeeyo la soo saaro oo hadii aad seexataan ma soo baxayaan reerka maanta halkan iska sharaxayna wareeraha taariikhda وعن كل رنتي برعو أما قبل كان وحنو دعينا يا حلبان هذا هالك على قصة شرح جمال يو عبد السلام قول باندين رجينا مرشح حلبان جمال جامع إسماعيل أو ترتمي جلها وكيلة قبل كتقدر وهالكاسي كهضي وحو الشيغين وحلكن اسكوس وشرحي سيدو وشقين لها بلشدة رير سومالي لان أرتا دمانتين إن كما هاد علينا يا كسو قيب قلك حفلة أنيقا يا عبد السلام محمد براله waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga UCID oo halka hortayda fadhiya oo aqbaleen xisbiga ku soo biirno annaguna iskaga maana soo biirnay waxbaanu ku soo korin doonaa insha Allah anigoo runtii aan iga hayn fan si aan taayid ku xaqiijiyo waxaan idin sheegaya wadan ka mid ah Europe oo Sweden leeyahay magaalo ka mid ah xildhibaan degmo ka noqotay isugu faana maanta waxaan ka helay nololta ugu wanaagsan oo aan u shaqeeyo dawladda wadankaas wasaaradda shaqadii shaqaale ahayd waa ka shaqeeyay waxaan laakiinse ka door biday anoo shaqo fiican haystaan waxaan ka door bidana jaamacadda Burco ku qaato aan ka dhigo voluntary ana waxba ka qaadanin macallin ka noqdo ma noqonin waxa ku xigtay inaan haddana maxadka tababarka shaqaalaha dawladda ee ku yaala Hargeysa aan wax ka dhigo isagana intaas ay igu soo celisay in idin shaqeeyaan doonayad ka shaqeysta ma rabo dhammaan reer Togdheer cod baan ka doonaya runtii wadankeenu wuxuu u baahan yahay siyaasadda ku socda in laga bedelo siyaasaddan inama anfici doonto
marka waxaynu u baahanay systemka waddankeena in wax ka bedelo waxaana ku tala jiraa inta aniga kartiya awoodi lahaysiin waxaan ka qaban kara ka qabto uma soo doono wax kale marka waxaan idinka codsanay inay igu taageertaan sidaasaan wadaaya gudoomiyaha xisbiga cid injineer faysal cali waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi Siciid Ucid oo munaasabada ugu dambeyn ka hadlay waxay sheegeen inuu xisbigu aqbalay labadan murashax kuwaas oo ay ku tilmaameen kuwa ay ka go'an tahay u adeegida bulshada reer Somaliland. Cabdisalaan waxa weeye wuxuu degan yahay Mareykan magaalada la yiraahdo Minnesota ilaahay baa weyne shirkad aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay oo logistikada wuxuu maamulaa lacag dhan milyanis wax ka badan isagoo taa nolosha haysta ayaa haddana wuxuu ka doortay inuu sidii awoogii ugu shaqayn jiray Burco inuu local councilka ka qayb galo oo idin shaqeeyo. Cabdisalaan nin u baahan maaha laakiin waa nin aynu inagu gobolka Togdheer uga baahanay local councilkeeda labadeena musharax laba nin oo kala dhacan maaha waa laba nin oo soo doorateen waa laba nin oo xisbiguna doortay waa laba nin oo waajibaadkoodana garanaya. Cabdisalaan horaan u aqbalay Jamaalna caawan u aqbalay waana ku mahadsantihiin. Jamaal waad aragtaan oo wuxuu ahaa rag isuula buu joogay wuxuu ahaa dadkii mudakarka ahaa ee qofkii dibadda meeshku dibadda joogay ama gudaha jooga ka keena guul meel kale uu keeni doono markuu dalka yimaado dadkii wuxuu ahaa mudakarka ahaa dadka isku ururin jiray madaxda jaaliyadda reer Somaliland ee Suudaan ka mid ahaa markii dambana wuxuu ahaa dalku yimi taas oo kale uu shaqeeyay haduu lacag doonayo ilaa dahabshiil uu ka shaqeeyay oo isaga tagay moogta Cabdisalaan hadda waa taa lagu sheego Cabdisalaan waxaan ku jira guddiga Mareykanka ku jira oo waa nin samaystay shirkad aad iyo aad u qiimo leh weeye isna gurmadku ku jira lacag buu soo doonay taa ogaado Jaamac Saleebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco.